يسن كوغسرين خصل كاس ناكتان ناك مروه حدات إلهي كبقيسد حدات إلهي كبقيسد إن عبد من يستات أوكا والد كاغ الدعاء كدل بنيسد كله حناكتان ولا قبا مروه واي كله سفرسني والله أنا نسرين أبيه ما أنت وحو يقول لي عاسي ويقف ديدا وحكى معهن لحين جرشالو السيي ونرشي ودباتي ونرشي أن كنو لان واي عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعن وناكسن داوديال ميل والبا دنيدي كجوجتان يسي والبو موقال كان إدين سو غاري دون waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan haddii aad cusubtahay soo dhawow subscribe ida channelka haddii aad hore ila joogtayna videoga like saar waad ku mahadsantihiin mar walba daawashada videoda soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub inta muuqaalka u guda galin saa u jeediin background-kan mataqaanin waxaan ku suganahay magaalada Cologne ee dalka Jarmalka shalay aan soo nabad galay xalay aan seexday meeshaan hotelkeygii aan joogaa balaay ma jirto xaalku waa dhagdhag haddii aad isbedelkan aragtiin waxba ha la yaabina waxaan ku suganahay dalka Jarmalka magaalada Cologne shalay aan imaaday hadii shalay galbii oo kala soo galay xalay si nabad isaga seexday aad u daalnaa shalay sababtoo ah magaalada xogaa warwareeg shalay kadibna waa iska seexday hadda wixii ka dambeeyay magaalada aad raba marka videogan duubo sababtoo ah wax kasta oo nolosheeda ah magaalada ayay iga jirtaa hadii aan noqon lahayd inaan xuska cuno hadii aan noqon lahayd inaan soo fiiriyo magaalada marka reer Germany garaan magaalada Cologne aan marti ku ahay waxaan rabaa inaan ka hadalno oo muuqaalkan uu ku saabsan yahay waa JK waa taqaaniin ninkii filimada turjumi jiray majaajiliste macallin JK youtuber sheekul kulli ninkan wax kasto macnaha kitaab kasto u akhriyaa gabadhiis ana JK ayaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada runtii aad loo hadalhayay sheekadan sheeko koreysay jirtay markii ay ana JK soo gashay Yurub durbo waxay gashatay funaanad iyo sulwaal social media oo dhan ay qabsatay aniga wax macna weyn ah ima sameynaynin marka ma baan ka hadlin hadda laakiin xaaladii waa isoo tartay sababtu waxay tahay ayada iyo aabeeda meeg toos isku qaadinooyin haddii aad aragteen ما مليون إيويلكيد أو ميكتوكس كخاتين إن درات كساد لي ما أنتن وحايدين وذا مركلة JK أو ميكتوس وقاتي جبديسة أيضا ويسو جوابتي وحارة مركورينا إلى ركتان أضيقة وحو كأندعوني يوحو حال كيسيا يسن كوغسرين خصل كاس ناكتان ناك مروه حدات إلهي كبقيسد حدات إلهي كبقيسد إن عبد من يستات أوكا والد كاغ الدعاء كدل بنيسد كله حناكتان والا قضاء مروه واي كله مدة كان waxaan rabaa inaan ka hadlo horta aniga hadda ka horay waxa idin eri wax walba oo dhaco horta waxa fiican qofka in la waco telefoon laga waco warkii lisfansi laakiin social media soo gal waa qalad waa sax anada laakiin aniga tayda hadda telefoon way naaftay waxaan isku dayay telefoon in aan wax ku xaliyo والدنيا إن روح كحليو وهي أهم وسي هي وحليقة في تلفك بلوك إلا يساو كنت وحي ممكن استيسان هذا ولي ولي تشكي والد حم أيات تايت هذا شو والدان ديون والدان تلفن واكو حلي واي والدنيا واكو حلي واي سكس واكو حلي واي كنت وحي ممكن استيسان ميديا أنا سوف نستو هذا وسيلي أنا نبيه جاكي جبديس وإسكور هايا جاكي جبديس وإسوجي إلهي سبحانه قادر كأيك مرقاتها وحايدا يكون خاقو سامي وفق ما هايو تلفن بلوغا بيساري وإيجا نمتي يعني دا أديغا دا واحد دينا ست إدل أنا تلفن إيوان دينا دا واحد وحليواي بشوين دي صوماليا دا ربيغا إنا أني بريكاي بري عبتاي باشا كتمادو أن سلامة وربو ومرقاتها كتاي إنا أنيغا حيايون كاي JK gabadhiis ayuu ummadda u soo bandhigay inuu dacwad ka yahay wax kasta oo gabadhaasi beri ka yimaadana aysan asiga aaba dhihi doonin oo ayada ay aaba dhihi doonto wuxuu sheegay in blog la saaray in telefonka laga xirtay in waa iga dhimatay la dhahay waxaas oo dhan waxa sheegaysa oo uu leeyahay waa gabadhiisa oo Yurubka cusub mardhow soo gashay Faransiiska joogto dadkan Algeria Spain ka soo galay ah xaalad Yurub hadda ay ku cusub tahay gabadh horta way dhar dhigatay isku markiiba shalay gabar labisan oo xijaabanay ahayd hadda markay Yurub soo gasheen gabar sulwaali funaanad kaliya ku socoto
ayay waaye inkastoo madaxa weli uu xiran yahay sababta madaxa gabdhaha soomaalida u xirtaana inta badan 90% inay diin tahay ani ilama ahan sababta waxay tahay gabdho badan arkay cooraadku inta kale qaaban naasoodii banaanka yaalo dabadoodii banaanka soo dhigaya haddana tinta u daboolan tahay markaan fiiriyay waxaan isdahay laba waaye timaha soomaalida inkastoo 100% aysan ahayn mid timo qurux badan oo jilicsan oo dhaadheer taas inay koow ka tahay tan labaad in gabdhaha qaar ay bidaar leeyihiin oo islaxa dhaadheer ay gashay sidaa darteed madaxa ay u xirtaan laakiin diin ay iska ahayn waa jiraan gabdho Soomaaliyeed oo diin ay ka tahay 5% waa gabdhaas oo diin macnaha iyo iimaan ay ka tahay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed 95% diin iyo iimaan kama ay madax la xirto okay markii arinta u soo bandhigay bulshada gabadhiisi ayadana way soo hadashay waxay tiri balaas aragno aniga markii ugu horeysay ugu dambeysay ka hadlayo ana rabin bulshada qaybadkii wax ay qarsoon social media keeno waligeena kuma fikirin noloshaada hore waa social media imaan doonto saabaha baa lagu soo adeegsan doonaa oo lacag la soo siin doonaa social media waxa la soo fariisanay wallahi aan misliin abay maanta wuxuu igu leeyahay caasi weeye gabadhayda wax kale maahan lixdan jir shal uu siiyey oo noloshii u dhibaateeyey oo noloshii aan ka noolaan waayey oo aad ii jirtilay oo aan xamar dartii ugu soo cararay oo abay diiday inuu nolosha dhibta badan aan ku noolahay iga saaro dulmigii la ii geystay markaan ka soo cararay abay wax ii qaban waay mar walba gurigeenu cararan ninkaa la ii celinayo lacag la siinayo reerahey markaan ka soo ordo maanta ciil iyo cadaabtii aan ka soo ordo soo tahriibo meel aan weligay xitaa ku fikirin aan soo maro maanta Yurub markaan imi ninka aan iska furay waxaa la leeyahay lagu celinayaa ku celintii markaan diiday reerkiiba markaan maanta social media la ii soo fariistay mise nololahayga hore la keenayo la leeyahay gabadhii waasa ma waxa aniga caasi ku noqday in la xidhin jir inaan diido inaan la noolaado ma waxa caasi ku noqday jirdil inaan aqbalo iyo bahdil inaan aqbalo ma waxa caasi ku noqday xidhin jir aan la noolaan karin maskaxda looga jiro inaan la noolaado inta hataa caasi ku ah caasi ugu horeeyo qofka noqday maahi haddaan jirdil diiday haddaan bahdil diiday haddaan waxaan ii qalbin diiday haddii lay gadanayo maanta lama gadan karo aniga Yurub baan joogaa xamar waa laygu gatay xamar baa laygu bahdilay xamar baa wax walbo aniga aha lagu baabi'iyey xamar baa noloshayda lagu baabi'iyey xamar baa laygu ciilay xamar baa laygu dulmiyey maanta markaa ka soo xararay social media la isoo fariistay waa aabbahe waxaan ku dhaho malahan ilaahay ha ku cafiyo ilaahay ha gabadhan waa horta reer xamarweyne waaye unu kale waa gabadhan anaga reer xamarweyne askanaha naftirkiin xamar jajab baa ka imaada xamarweyne xamar jajab waa diris gabadhan waa ciyaalka xaafadda waa reer xamarweyne reer ahaan inay reer baraawo tahayaan u maleynaa marka gabadhan durboorta reer Puntland ay toos u noqotay hadalka way bedelatay luqadda way bedeshay ciday toos u aaday Puntlander ayay toos u noqotay maxaa yeelay wiilka laga dacwoonayo oo gabadhan hadda ay xiriirka la leedahay oo uu leeyahay JK iyo qosolka kugu sirin gabadhan waa la qabaa uu leeyahay waa reer Puntland waa wiil daarad Ismaaciila okay bal wiilka laga dacwoonayo bal aan aragno يا أيها الذين wiilkan Puntlanderka ah waa mudugiyay logada taleex nogobi ya alaasku ha isgaare amni badantii garoowa marka wiilka laga dacwoonaa waa wiilkan waa wiil daaro Ismaaciila MGO ka yahay laakiin gaagaabki idaadeerka wuxuu ka yahay anima ka sahay heesa ayantan soo baxday oo Daawud Xanfar oo ku soo qaaday markaas commentiga waxa lagu soo wada qorayaa dadkii gaagaabka ah oo share aad u sameeyay kaskii qabe iyo macalla kala masoor wada moge iyo wada cadaan iyo wax aan naftirkii aan aqoonin runtii majarteenku waa tiro badan yahay taas intaas ay joogto JK iyo gabadhiisa ee xaaladu maroosa ma milyan iyo wiilkeedu way ka soo tagtay warkaan waa wada dhageysateen waa wada aragteen
ani waxaa ii baxay interviewgii ugu casrisanaa ee social media lagu diyaariyo inuu yahay kan. sababtu waxay tahay gabar $2,000 kusoo taariibtay ayaa waxay ku leedahay oo tan iyo markii ay soo bixaysa aabeeda loo duceeyay lahaa ayaa waxay ku leedahay ninaan kasoo faktay 60 jir ay qabay dhibaataan ku jiray. gabadhan weligay waa arki jiray dhibaato iyadoo ka muuqatana ma arkin youtuberadna waaye ana JK youtube qoran ayayna leedahay ayadoo qurux badan shaqaysata sheekadeeda wadata aan arki jiray. lacagta youtube markay waa aruurtayna nolosha inay wax ka bedesho ee qurbaha imaado ayay ugu talagashay. hadda bale marka waxaa la diyaarinayaa aabeena waa kana ninoo igu khasbooya. what a game Somalia, what a game waa ciyaaraysi Soomaaliya laakiin gameka cadcadka ay ciyaarayaan isku markii uu fashilmaa. dadka cadcadka daacadin waaye inta badan sida been loo sheegay ma yaqaano been si loo diyaariyo anaga leen naqaano. marka blanka isku markii fashil waaye maxaa kuu baxay adi idaawo doono oo video arki doono maxaa kuu baxay. ana waxaa ii baxay ana JK iyo aabaheed inay barnaamij interview Francisca ay ka gadi rabaan inay nin weyn ka soo carabta lagu khasbooyo aysan u baaneen lagu arintaasa ii baxday. adina commentingna la wadaag video ta kusoo gaarana like ta wax lacaga ma ah waa free si muuqaalka meel fog u gaaro like saartani kulantidan dambe.